السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف فوتبول شو إذا لا سودا وهذا ما أنت رمضان والله بعتنا عاوة بينك كوبيلاتنات بينو قلنا وحين الله إنه قبري إنه عمل كنا صالحة إنه قاق بلا أجر كذا يا حسنات كذا ينسيه وإلهي تنتهي عف ما تقبي عمر درر إنه جو قارسيه وحين الله يعني نفط ذا كبل أبيا وطبعاً وجود بيجي إنه كفاية سنة صلاة إنه تكنه إنه عايزين القرآن كانوا آخرينه أنت هذا صار عفنا وحين دول استعجد وانا عيارتي حتى لما أعطي أي سكوير كين كواحدة بايرن يو كواحدة مان سيتي إن واحد مودس عيارتي سعداشة ذي بقول كي بشن إيه كنت هذا وجوب هذا مان سيتي الراعيني ما دام يجرون كذا شوكتو بقول كي بشن يافرت النباير دات كينتو ذا بدنا نايبر برنا على هايين مركا أنتي ني كومنت ككبر حسي بيج كيجا فيسبوكا qofkii ku guuleystay hadii la helaa abaalmarintiisa waa la siin doonaa dib baan u eegi doonaa screenshot baan ka soo qaadi doonaa videoga ku xiga ayaan soo dhigi doonaa ciyaarta berito la hadii la beedmo marka qofkii ku guuleystay abaalmarintiisa uu heli doonaa haddaba ciyaartii maxaynu ka nidhahnaa ciyaartii oo aad moodaysay inay dhinaca qura ka raran tahayba oo aad moodaysay inta badan inay kooxda Man City ku awood badan tahay hadday noqoto xagga difaaca iyo hadday noqoto xagga weerarkaba ayaa waxaa ku soo gabagabowday 3 gool iyo waxba oo ay Man City ku raacday guushu haddaba haddaynu eegno sababihii kalifay in Bayern Munich 3 gool iyo waxba looga badiyo waxa moodaysa inay kamid ahaayeen baqdin inay ku jirto ciyaartooydeeda oo world class players ay haysato ciyaartooyintooda badan Champions League win gareeyay haddana maad moodayn inay ka muuqato kooxdii Champions League qaaday inay ahaayeen waxaad moodaysay maalintii PSG la ciyaarayeen Messi iyo Neymar iyo Mbappe ka horimanayeen awood ay lahaayeen iyo sidii u ciyaarayeen kalsoonida ku jirtay waliba markii PSG garoonkeeda la joogay inay ay ka maqnayd waynu arkaynay goolasha qaladaadka ka imanayay inay xagga Bayern ahaayeen difaaciyadeeda ka imanayeen dhexdooda haddaad eegto weerarkooda haddaad eegto inay yar baqdin ku jirtay baad moodaysay marka kooxdii Man City maanta waxaan oran karnaa waxay fariin cad u dirtay kooxaha kale ee ku tartamaya waliba kooxda Real Madrid oo loo saadaalinay inay soo bixi doonto amba Chelsea kii soo baxay Chelsea maanta wada bay ka samaysatay season kano FA Cup kii iyo Carling Cup kiiba iyaga ka reebay the Champions League haday ugu daraana sanadkan waa kooxda Chelsea wada ka samaysatay marka waxay u direen fariin cad oo ah awoodda Manchester City maanta inay ka awood badan tahay kooxaha Yurub oo dhan in Haaland ay u keentay inay Champions League qaadaan oo isagana aad moodaan ciyaar kasto Champions League oo ciyaaray inuu ka jawaabayo ciyaartii ka horeysay inuu 5 gool u dhaliyay maanta Bayern oo markuu Germanka joogtay ciishay oo markasta ka badinaysay uu ka dhaliyay goolkiisii marka waxaan leeyahay Bayern inaanay rajo lahayn ayaan qabaa anigu oo ciyaarta dambe 4 gool iyo waxba aanay kaga badin karin Thomas Tuchelna toobabaro weyn weeyaan laakiin fulinimo yar inay ka muuqataad moodaysay marka waxaan u arkaa in ciyaartaasi dhamaatay 3 ka Bayern walow ciyaarta dambe ay badin karto laakiin 4 inaanay ku badinayn ciyaartiina ay saa ku dhamaatay halfkii hore la joogaa laakiin aan qabo in ciyaarta Bayern iyo Man City saa ku soo gabagabowday Man City ay semi finalka saa ku tagtay ciyaarta labaad ee dhexmarisay Bayern Inter iyo Benfica waxaan islahaa Inter waa la cunaya caawa awoodda kuma ogeyn markaad eegto season ka sida u ciyaarayso markaad eegto sida ay u ciyaaraysay ciyaartii FC Porto ciyaartii ka horeysay soo baxeen waxaan islahaa Inter waa u dhamaatay laakiin Inter caawa 2 gool iyo waxba iyaguna ku badiyeen iyagu waliba away jooga marka waxaad moodaa semi finalka labadii kooxood ugu horeeyay in Inter iyo Man City yihiin waynu eegi doonaa second leg wixii dhici doona laakiin caawa waxaan jecelahay barnaamijkayga inuu in yaro gaaban u ahaado insha Allah dib aynu week oo dhan u falanqayn doonaa marka ciyaaraha habeen dambe dhacaan inay inta ku ekaado habeen dambe page-kayga soo gelin doonaa cidii aaga football show page-kiisa la socotay Facebook-ga waa mahadsan tahay cidii aan la soconin waxaan idin leeyahay ka soo qayb gala saadaalinta baa la bixin doonaa qofkii ku guuleysta saadaalinta amba score-ka saxda $50 buu ku guuleysan doonaa insha Allah waxa qura lagaaga baahan inaad page-ka like gareyso share gareyso saadaashaadana aad soo dhiibato marka waa aaga football show oo idin leh intaanu dib u kulmayno hadii Ilaahay ay saaragtay dambe xiiso leh